walaalkayga muslimka ahow ma doonaysaa oo ma rabtaa inaad hesho laba ajir bisha barakaysan ee ramadaan. ajirka koowaad oo ah ajirkii aad adigu ku soontay, ajirka labaad oo ah qof muslim oo miskiin ah oo soomana inaad afuriso. haddaba waxaa jira masaakiin badan oo sooman oo wax ay ku afuraan haysanin. haddaba si aad ugu faa'iidaysto fursaddan dahabiga ah, arrintaas waxaa ilaahay dartiis ugu istaagay walaalaha iskaashada ee miskiinka. haddaba si aad ugu soo biirto samafalkan waxaan sameynay group WhatsApp ah. haddaba sadaqadu waa daawo, waa gaashaan, waa ajir aan la xisaabi karin bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba si aad ugu qayb qaadato tabarucaadan waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada saaran. qaala allahu tacaala, allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rasuul rumeeyeyow kutiba calaykum asiyaamu, kutiba waxaa la farad yeelay calaykum dushiina asiyaamu soon, kamaa sida kutiba la farad yeelay cala aladiina kuwii dushooda min qablikum idinka horreeyey, lacallakum waxaa hubaal ah tattaquuna inaad dhowrsataan ama aad baqdaan. walaalayaal, haddaba waa fursad qaali ah bisha barakaysan ee ramadaan. bisha barakaysan ee ramadaan sadaqada la bixiyo sadaqooyinka kale way ka qiimo badan tahay, way ka khayr badan tahay, way ka ajir badan tahay. haddaba waa fursad qaali ah oo marla arag ah. ka faa'iidayso walaal, ee afuri walaalkaaga muslimka ah iyo walaashaada muslimadda ah oo waxba aan haysanin, oo isla markaasna waxay ku afuri lahaayeen aan heli karin. waad mahadsantihiin, wajazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان.